haddaba fanaanka weyn ee Maxamed BK ayaa Ilaahay ku caasiyay kadib markii uu fanka dib ugu soo laabtay. Maxamed BK ayaa isagii sanadkii la soo dhaafay sheegay inuu fanka isaga baxay, Ilaahna u toobad keenay. Kusoo dhawaada daawadayaal barnaamij kale oo xiiso leh. Haddaad noogu cusub tahay barnaamijka saaxiibada la wadaag, subscribe dheh channelka, like na inoo saar. Fanaanka weyn ee Maxamed BK ayaa waxa uu sheegay inuu fanka isaga baxay sanadkii 2020 uuna u toobad keenay Ilaah weyn subxaanahu wa tacaala. Maxamed BK ayaa waqtigaas waxa uu sheegay inuu in badan ka fikirayay siduu fanka uga bixi lahaa kuna aaminayay. Wuxuu sheegay in saaxiibkiis fanaankii weynaa ee wadaadkiis ku bedelay Axmed Biif uu kala taliyo fanka, talooyin iyo waana iyo wacdina uu siiyay. Maxamed BK ayaa kadib wuxuu sheegay inuu go'aansaday inuu gebi ahaanba fanka isaga baxo, Ilaahna u toobad keeno, cibaadadana iyo wacdiga iyo cilmiga diinta Islaamka u soo jeesto. Waxay ahayd sanadkii 2020. Haddaba maxaa dhacay? Sanad kadib markii uu sheegay Maxamed BK fanka inuu ka baxay, ayuu fanka dib ugu soo laabtay. Haddaba Maxamed BK waxa uu sheegay inuu fanka dib ugu soo laabtay, hees cusubna soo qaaday. Dad badan oo la socday fanka Maxamed BK ayaa iyagu la yaabay. Fanaanka oo isagu sanadkii 2020 ku dhaartay inuu fanka isaga baxay, dib dambana ugu soo laabanaynin, ayaa iminka dib ugu soo laabtay, Ilaahay weynna ku caasiyay. Haddaba dad badan oo fanka Soomaalida ka faallooda ayaa waxay sheegayaan Maxamed BK sababta ku kaliftay inuu waagaasi sheego inuu soo hanuunay fanka uu isaga baxay inay tahay sababta adduunka oo waagaasi wada xidhmay. Cudurka ama caabuqa loo yaqaan COVID-19 ayaa isaga sababay in aan wax show la qaban. Maxamed BK ayaa isagu jeebka ku xumaaday, waxa uuna damcay si uu jeebka ugu sii weynaado inuu fanka isaga baxo, qof wadaadna iska dhigo. Tiyo u suurta gashay oo shaqo waxa laga siiyay shirkadda Telsom, soo ugu soo dhuuntay inuu fanka ka baxay, Ilaahna u toobad keenay. Dadka odorasa waxay leeyihiin hadda markii cudurkii uu sii gabaabsi noqday, showgii iyo fankiina uu dib u soo laabtay, Maxamed BK shaqadiisii ayuu dib ugu soo laabtay. Kullu shayin yarjicu ilaa asli. Haddana waa fanaan caan ah, weligiisba caan buu ahaa, laakiin heesihiisa ayuu dib ugu soo laabtay. Ilaahay weynaa ee uu toobad keenay oo meel bannaan uu ka sheegay inuu fankii ka baxay ayuu ku caasiyay. Haddaba daawada adigu sidee kula tahay? Ku saxan yahay Maxamed BK inuu fanka dib ugu soo laabto, Ilaahna uu ku caasiyo? Maxay kula tahay adiga? Maxaase kula talin lahayd? Barnaamijkan iyo kuwa kale oo xiiso leh ayaa halkan kala socon doontaan. Subscribe ka ha iloobin iyo like-ta, saaxiibadana la wadaag. Waa salaamantiin.